munaasabad lagu soo bandhigay koritaanka ganacsiga yaryar ee dalka Soomaaliya daraasad lagu sameeyay ayaa waxaa lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho sida warkan uu markale ku faahfaahinayo wariyaha nooga soo warama magaalada Muqdisho Ibrahim Sheekh Xuseen Sheekeye munaasabadan oo ahayd mid si arsar loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen maamulka macallimiinta professorada iyo ardayda jaamacadda Indian Ocean ee magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu soo bandhigay buug ka hadlaya koritaanka ganacsiga oo ka sameeya ganacsiga gudaha soo ifbixida suuqa bakaaraha intii ay xafladda socotay ardaydii buuggan juhdiga badan ku bixisay waxa ay ka sheekeeyeen faa'iidada buuggan uu leeyahay bulshada iyo inta uu ka kooban yahay kuwaasi oo ka qalin jibiyay jaamacadda Indian Ocean ee magaalada Muqdisho waa kuwaan Cabduqaadir Xuseen Xasan iyo Cabdiraxmaan Maxamed Shariif oo si wada jira sharaxaad kooban kaga bixinaya buuggani anaga ujeedada ugu dambaysa aan rabnay inaan raadino waxay ahayd inaan soo ogaano istiraatiijiyada uu u baahan yahay suuqan in la casriyeeyo cilmi baarista waxay soo ogaatay suuqan inuu u baahan yahay inkastoo baahi kale oo badan jiraan asay istiraatiijiyada saddex istiraatiiji oo ugu muhiimsan ee suuqan u baahnaa ayaa waxay kala ahaayeen in loo sameeyo wax loo yaqaan pricing policy nidaam lagu maamulayo badeecada qaabka loo galayo hadda suuqa ma jiro pricing policy wax la yiraahdo nin walba uu keeno asaga gato hadii ma jiro ninka badeecada intaas ma ku keensado ilaa intaas ayaa gadi karta ma jirto suuqa bakaare research-ga aan sameeyay waxyaabaha lagu dhaliyay inaan eegayna la sii ka doorano dhanka dhaqaalaha waxaan aragnay muhiimad gaar ah inuu leeyahay bulshada Soomaaliyeed markii loo fiiriyo dhanka laga fiiriyo xagga shaqaalanimada waxaa ogaanay in boqolkiiba 40 dadka Muqdisho ku nool ay ka shaqeystaan suuqa bakaare muhiimada uu suuqa leeyahay way ballaaran tahay suuqu ma lahan siyaasad midaysan ama siyaasad guud ee dhanka sicirka badeecooyinka dadka ugu ganacsada taasoo aan la jeedno macnaha cid kasta waxay rabtay iibisa siyaasadaas oo aan ku saleysnayn danta shacabka iyo dhaqaalaha dalka injineer Samawada Maxamed Cali Daahir oo ah maamulaha jaamacadda Indian Ocean ee magaalada Muqdisho ayaa isna dhankiisa ka hadlay ujeedka buuggan loo diyaariyay research-kan aan sameynay ujeedadiisa waxay ahayd in aan wadankii wax xalgal ah oo maanta buugga qortay xalgal noqonaya qolooyin maanta u bilaabaysay research-ka daawada la hadlayna waa u sheegay group oo international oo research member ka noqonay oo San Francisco degan oo 8 milyan oo research isugu jiro ay member ka yihiin ujeedada leenahay waxa waaye buugga qortaan in 8 milyan ay expose ku noqoto oo waxa ku soo kordhisay waxa anaga Soomaali ah in loogu sheekeeyo wadanka oo aan si dhex joogtay hatta banaanka joogay waa fiicnaan lahayd adoo dhex jooga nin banaanka wax ka soo qora oo ku sheegay xaaladda dawladda Indian Ocean Campus xaaladda saawa waa marka taasna waa in aan counter gareena rabnaa aan iska saxnay insha Allah Ibrahim Sheekh Xuseen Sheekeye Somali Channel Muqdisho